wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena siyaasadda iyo sirdoonkood alaaba ka daawatan xildoon media qodobada aan maanta daha kaga rogi doonana waxaa kamid ah maxay ka wada hadleen Axmed Madoobe Siciidani iyo beesha caalamka Ayatollah Ali Khamenei wadanka Iran waxa uu sheegay in Imaaraadku ay ku ceeboobeen heshiiskii Israa'iil ay la galeen dawladda dalka Turkiguna waxa ay soo saartay gantaalaha ridada dhexe ee laga haga remote-ka qodobada iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba barnaamijka oo fidsan madaxda maamulada Jubaland iyo Puntland ayaa shalay gaaray magaalada Muqdisho iyaga oo markiiba la kulmay danjiraha Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto iyo beesha caalamka waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaa waxa ugu muudnaa qodobo ay diidan yihiin oo ku jira in aanay ku qanacsanayn guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya tirada xulaysa xildhibaanada isku dhafida ergooyinka waxa kale oo ay ka hadleen in ay damaanad uga baahan yihiin beesha caalamka oo aanay ku kalsoonayn dawladda Soomaaliya iyo in xal loo helo arrimaha Jubaland oo u gaar ah Axmed Madoobe oo ku doodaya in faragelinta laga daayo oo laga soo saaro ciidamada la geeyay gobolka Gedo sida uu ku doodayo walow aysan khalad ahayn in ciidanka dawladda Soomaaliya uu ka howlgalo gobolada dalka balse maamulada oo dantooda gaarka eeganaya ayaa ka soo horjeeda in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka howlgalaan qaybaha kala gedisan ee gobolada dalka gaar ahaan Jubaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Siciidani ayaa dhanka kale lagu wadaa in ay la kulmaan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warar soo baxay ayaa sheegaya in ay la hortagi doonaan ugu yaraan 3 qodob oo kala ah kow in heshiis laga gaaro doorashooyinka qaranka maadaama Axmed Madoobe iyo Siciidani ay ka biyadiideen shirkii Dhuusamareeb 3 2 dhamaynta heshiis bishii Luulyo ee Jubaland oo ay dawladda federaalku soo saartay in ay tanasul u sameynayso walow aan lagu dhameynin waqtigii loo mudeeyay ee 15 bishii Agoosto 3 arrimaha ku saabsan mashaariicda iyo deeqaha oo ay diiradda saarayaan maamul goboleedyada gaar ahaan Jubaland iyo Puntland waan filayaa inaad qodobkaasi wax badan ka fahamteen iminkana dalka Turkiga shirkadda Roketsan oo ah shirkad Turkish ah ayaa sameysay gantaal nooca ridada dhexe ah oo taangiyaasha burburiya kaasoo lagu xirayo gawaarida gaashaaman ee loo yaqaano Kaplan oo ka kooban dhowr nooc oo loo daabulayo ciidanka xoogga dalka Turkiga gantaalahan oo xoojinaya awoodda ciidanka dhulka dalkaasi ayaa sameystay gantaalahan oo ah kuwa la hagi karo iyaga oo ku shaqeynaya hanaanka dhowaan la horumariyay ee ah Yalmaan isla markaana dhowr nooc isugu jira wuxuuna hanaankaani ku shaqeynayaa gantaalaha ay sameyso shirkadda Roketsan sida gantaalaha ridada fog ee taangiyada burburiya iyo midka laysarka lagu hago ee isna masaafada dheer wax ka dila oo labaduba taangiyaasha burburiya oo ay weheliyaan gantaalaha dhanka cirka ah hanaankan iyo hubkan ayaa isu qaadanaya noocyo badan iyada oo markasta la eegayo baahida jirta iyo nooca uu yahay bartilmaameedka la tooganayo hanaankan ayaana awood u leh in uu bartilmaameedka kaga hortago meel ka baxsan 8 kilomitir halkaasina uu ku burburiyo cadawga waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen qodobkaasi wali waxaad daawanaysaan wararkeena sirdoonka ee siyaasadda oo alaaba ka daawatan xildoon media iminkana dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei dalka Iran ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka dalkaasi talaadadii waxa uu ku sheegay in Imaaraadka ay dhabarka ka midiyeen islaamka ayna weligood ceeb ku noolaan doonaan dabcan khiyaamada Imaaraadka ma sii jiri doonto hase yeeshee ceebta ka raacday weligood waa la xasuusan doonaa ayaa uu yiri Ayatollah Ali Khamenei waxay maamulka Sahyuuniyiinta u ogolaadeen inuu gobolka soo galo waxayna hilmaameen shacabkii Falastiiniyiinta Imaaraadka weligood waa ay ceebeysnaan doonaan waxaan rajaynayaa in ay soo baraarugaan oo ay magdhow ka bixiyaan wixii ay geysteen ayaa uu yiri mas'uuliyiinta Iran ayaana si xoogan u cambaareeyay heshiiskaasi Mareykanka uu fududeeyay ee Israa'iil iyo Imaaraadka dhanka kale sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka Jamal al-Musharak ayaa ku gacan sayray hadalka Khamenei waxa uu sheegay in wadaadka nabadda iyo barwaaqada aan lagu gaarin hadallada nacaybka iyo horinta ku dhisan hadallada noocan ah waxa ay lid ku yihiin ayaa hadalkiisa sii raaciyay heshiiska Imaaraadka iyo Israa'iil ay galeen ayaa waxa garwadeen ka ahaa wadanka Mareykanka gaar ahaan xukuumadda madaxweyne Trump balse maadaama uu ahaa heshiis la isku qasbay oo aysan labadoodu go'aan ka soo gaayaysan ku gaarin waxa adag sida uu ku fulo ama uu ku hirgalo
walow 2 toddobaad kadib uu madmadow soo kala dhex galay mar uu ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu khudbad ku sheegay in uusan ka tanasulin fikirkiisii ahaa in Imaaraadka Carabta laga iibiyo hubka Mareykanka gaar ahaan dayuuradaha F-35 kuwa oo Abu Dhabi ay ku taamaysa in ay soo iibsato kaas oo heshiiskana kamid ahaa balse Netanyahu uu beeniyay waxaana la kansalay xaflad lagu dhigi lahaa Tel Aviv oo ay ka qayb gali lahaayeen madaxda Abu Dhabi kadib hadalkii Netanyahu balse maalmo kadib hadalkaasi waxa booqasho ku yimid wafdi ka socday Mareykanka iyo Israa'iil kuwaasi oo Abu Dhabi soo gaaray waxa ay dayuuradiisi day soo martay hawada wadanka Sacuudi Carabiya taas oo u fududeysay waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen qodobkaasi fadlan haddii aad doonaysid in warar noocan oo kale aad nala wadaagto inoogu soo dir lambarka shaashada ka muuqda waad ku mahadsan tahay daawashadaada fadlan la soco qaybaha dambe